بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cantar Sayid Xuseen waxaan ka tirsanaa xarunta Baaf ee magaalada Muqdisho waxaan naga soo xiriirtaa telefishinka hortaada ka muuqdo waxaan ku soo guda jirnay barnaamijka Wahaleena Bookkeeping and Accounting maanta waxaa taaganahay chapterka labaad waliba page-ka 13aad chapterkan si toos ah wuxuu la xiriiraa inaan fahmno debits and credits iyo waliba the double entry system kana waa baradoona hadii la yiraahdo chapterkan wuxuu ka kooban yahay introduction the account debits and credits the ledger the chart of account trial balances summary iyo problems qayb walbaba amba ciwaan walbaba sidiisa ayaan u dulid istaagi doonaa hadii la yiraahdo hadii aan ku hormaray introduction-ka inaan mar walbaba equation-ka aan diyaarino equation-kaas oo ah in asset-keena uu leeyahay liability-ga oo loo geeyay capital-ka dhacdo walba markay dhacdo waxay noqonaysaa marka arrin culeyskeeda wato isla markaasna qarash badan shirkadda uu ka galayo oo markii dhacdo saameynta ku yeelanaysa equation-ka qaababkii hore aan soo baranay markii aan rabnay inaan sameeyno waxay noqonaysaa marka mid waqti u baahanayso shaqaale badan u baahanayo culeys badan in laga dareemayo meeshana qalad aan ka marnaa doonin waliba waxaa la dareemaa hawshaas culeyskaas iyo waliba qarashkaas zaidka ah markii ay shirkadda la kulmayso dhacdooyin aad u fara badan amba markii ay shirkadda ay sameynayso activity aad u fara badan isla markaasna ay keenayso in dhacdooyin aad u fara badan meeshaas uu ka imaado bishaas la xisaabtamayo amba bishaas la shaqeynayo amba sanadkaas la shaqeynayo sidoo kale haddii loo baahdo in warbixin item gaar ah la raadiyo sida cashka oo kale oo hore waxaan soo baranay in aan dhacdo walbaba aan arkaynay cashka soo saameynayo wixii galay wixii ka baxay marka itemyadaas oo aan soo aragnay sida cashka oo kale markaan rabno marka in aan warbixintiisa aan helno بعدما laga yaabo dhacdooyin aad u fara badan in itemkaas cashka ah lagu diiwaan geliyo wax soo galay wax ka baxo taasoo kale waxay keenaysaa in markii aan warbixintaas rabnay inaan raadino nidaamka hore aan isticmaalaynay oo aan transactionska aan ku analyze gareynaynay oo ahay assets iyo liability balance capital in sidoo kale ay meeshaas imaanayso culays fara badan oo ay noqonaysa marka in hawshii ay noqoto howl la dul saaray informationkaas oo kale markii itemka rabno wixii soo galay wixii ka baxay iyo wixii ku jiro haraaga inaan helno waxaan ku qasbanahay marka inaan dib ugu laabano aan soo koobno dhacdooyinka itemka saameynayay taasna waxay keeni doontaa in waqti badan meeshaas uu ku lumo arrintaas bedelkeeda oo nidaamka hore aan soo isticmaalayna ayaa waxay noqonaysaa marka in la isticmaalo wax loo yaqaan account amba konto haddaba waxaan gudbaynaa ciwaanka labaad oo ah waxa uu yahay account-ka waxaa lagu qeexi karaa diiwaan lagu qorayo waxa zaa'idinayo wixii zaa'ida iyo waliba wixii nusqaana macnaha plus iyo minuska ayaa lagu qorayaa diiwaankaas iyo waliba wixii haraa itemada kala duwan oo hoos imaanaya amba assetka hantida guud amba liability-ga amba deymaha shirkadda lagu leeyahay amba capitalka maalgelintii amba income-ka dakhliga amba expense-ga qarashaadkii baxaye haddaba asset liability capital income expense wuxuu noqonayaa category amba magac guud ayuu noqonayaa category walba amba qayb walba waxaa hoos imaanaya account ayaa hoos imaanayo amba items ayaa hoos imaanaya item walba waxaa qasab noqonaysa marka in loo furo accountkaas ayaa wuxuu sahlayaa item walbaba wixii soo galay oo increase ah iyo wixii ka baxay oo decrease ah in lagu qoro kadibna meeshaas laga soo saaro haraaga amba wixii ku haray accountkaasi oo sidaas marka ay u fududaato hawsha haddaba account-ka markii la rabo in la soo bandhigo qaabo badan ayaa loo soo bandhigaa habka ugu fudud ee account-ka lagu soo bandhigayo waxay tahay in la isticmaalo xarafka T-ga wuxuu noqonayaa marka in la isticmaalayo oo la rabo in lagu soo bandhigo account-ka oo account-ka ayaa la rabaa marka in loo sameeyo qolfooftaasna waxay noqonaysaa T-na waxay noqonaysaa amba account-kaas wuxuu u ekaanayaa xarafka T-na wuxuu noqonayaa marka account-ka nidaamka aan isticmaalayno haddaba account-ka T amba qolfoofta T waxay ka kooban tahay 3 qaybood qaybta koowaad waxaa lagu soo bandhigayaa magaca account-ka iyo waliba numberka account-ka qaybta labaad waxaa lagu soo bandhigayaa wax loo yaqaan debit side waana dhinaca bidixda ee account-ka ayuu noqonayaa qaybta saddexaad wuxuu noqonayaa in lagu soo bandhigo credit side wuxuuna noqonayaa qaybta midig ee account-ka haddaba wax walba oo aan
ku qoraynaa accountka amba wax walbo ziyaadinaya accountka dhinac ayaa laga geli doonaa wax walbo accountkaas yareynayna dhinac ayaa laga geli doonaa si meeshaas looga helo wax loo yaqaano balance amba haraa haddaba haraagaas ayaa waxay tahay dhinac markii uu ka bato dhinaca kale amba kala goynta labada dhinac ayaa waxay noqonaysaa marka meeshaas inuu ka imaado haraagaasna waxaa inta badan lagu qoraa dhinaca badan ayaa lagu qorayaa oo accountka wuxuu ka kooban yahay hore kuugu sheegay laba dhinac waxa loo yaqaanaa debit dhinacna waxa loo yaqaanaa credit labadaas dhinac lacagii aan ku qornay amba wixii soo galay wixii ka baxay ayaan waxaan sameynaynaa marka inaan isku geyno kadibna aan kala goyno markii aan kala goyno kadib ayaan waxaa meeshaas ka helaynaa balance wax loo yaqaano balanceigaas ayaan waxaan ku qori doonaa dhinacii badan hadduu debitka badan yahay dhinaca debitka ayaan ku qori doonaa haddii dhinaca creditka uu badan yahayna dhinaca creditka ayaan ku qori doonaa waxaan rabaa marka si aan accountka iyo waliba nidaamkan lagu soo bandhigayo oo tii accountka aan si fiican u fahmno inaan bal excel ka imaado meeshaan aan kugu sharaxo accountka markii la isticmaalayo nidaamkan qolfofta ta dabcan saan ayuu u yaali doonaa iyadoo la isticmaalo nidaamyo badan amba accountka waxaa lagu soo bandhigi doonaa nidaamyo lagu soo bandhigi karaa nidaamyo kale oo aan gadaalkaaga sheegi doono haddii la yiraahdo haddaba haddii qolfofta ta isticmaalaysid qolfofta wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood xagga sare waxaa lagu soo bandhigaa accountka numberkiisa iyo waliba magaciisa dhinaca bidixda waxaa lagu soo bandhigaa amba lagu qoraa waxa loo yaqaano debit amba waxa loo yaqaano debit side waxaana loo soo gaabiyaa xarafka dr dhinaca bidixta accountka waxaa loo yaqaanaa credit waxaana loo soo gaabiyaa cr haddaba waxay ku xirnaa doontaa accountka aan u furayno tiidan sida uu u dhaqmi doono marka assetka iyo liabilityga iyo capitalka iyo reviewga expensiga mid walba si gaar ayuu u dhaqmaa waana cashirka soo socda waxaan ku baran doonaa haddii la yiraahdo ilaa hadda kaliya waxaan rabaa inaad fahamtid in uu jiro wax loo yaqaano account waxaa lagu talagalay in lagu diiwaan geliyo item kamid ah itemada hoos imaanaya asset liability equity review expense mid kamid ah in aan soo qaadano kadibna wixii ziyaadinaya accounkaas iyo wixii yareynaya inaan labada dhinac u kala gelino kadibna meeshaas aan kasoo saarno balance haddaba balanceiga markii la xisaabinayo dhinaca debitka waa in laisku geeyaa dhinaca creditkana waa in laisku geeyaa kadibna dhinaca badan ayaa waxaa laga goynayaa dhinaca yar kadibna balanceiga waxaa lagu qorayaa labada dhinaca badan ayaan ku qori doonaa haddii la yiraahdo waxayna ku xirnaa doontaa accountka markaas aan u furnay nature-kiisa amba normal balanceigiisa wax loo yaqaano haddaba bugan dabcan wuxuu isticmaali doonaa nidaamkan t account ayuu isticmaali doonaa oo qolfofta taa lagu soo bandhigayo accountka laakiin nidaamyo kale oo loo soo bandhiga accountka ayaa jiro oo mararka qaarkood waxaa la isticmaalaa 6 column mararka qaarkood waxaa la isticmaalaa 8 column ayaa la isticmaalaa oo columnyo caadi ah ayaa account ahaanta loo soo bandhigaa waxaan rabaa marka barnaamijyadan ugu dambeeya hadda la isticmaalo oo uu ka mid yahay quickbooka inaan si toos ah u tago halkaas oo raba marka inaan kugu tuso sida uu u soo bandhigayo accountka waxaa loo yaqaanaa cash ayaa loo laba jeer marka haddii aan calooshiisa aan galo si aan u arko accountka cashka qaabka wax u soo bandhigayo dabcan wuxuu isticmaalayaa isaga t account ma isticmaalaya barnaamijyadan softwareadan casriga computer accounting loo yaqaano ayaga ma isticmaalaan t account waxay isticmaalaan 6 amba 8 amba ka badan ayay isticmaalaan sidaa ujeedid meeshan 6 iyo 8 wuu ka badan yahay walow aan ku samayn karno customize oo kolomyadan qaar ka mid ah aan kasoo tegi karno anagoo isticmaalayna wax loo yaqaano customize report kadibna aan meeshan ka xukumi karno oo akoonyada kasoo muuqanaya qaybtan aan meeshan ka habay karno oo qaarkoodna aan ka qari karno qaarkoodna aan kusoo dari karno ayaa waxay tahay waxa aan raba inaan ku fahamsiiyo in markii la isticmaalayo nidaamkan aanan ahayn t accountka in loo baahan yahay accountka magaciisa in la helo iyo nuuciisa iyo waliba wixii soo galaya ama daaqada laga soo gelinayo taariikhdii dhacdooyinka ay dhaceen dhacdooyinka nambaradooda cidda ku lug lahayd memo ama faahfaahin yar account-kii qaybta kale imaanaya oo accountka markii wax ay soo galaan oo la debit gareeyo dabcan waxaa jiraya account kale oo la credit gareynayo split wuxuu noqonayaa marka qaybta kale amba la credit gareynayo amba la debit gareynayo debit wuxuu noqonayaa wixii account soo galaa oo ziyaadinayay markii loo fiirinayo accountkan cashka sidaas lamidana waxaa jiri doona wax loo yaqaano credit iyadoo loo fiirinayo marka accountka iyo nuucuu yahay kadibna waxaa la heli doonaa wax loo yaqaano
balance amba hara oo dhacdo walba markay dhacdo waxaa si toos ah loo xisaaminayaa amba programka uu xisaabinaya akoonka wixii ku haray si akoonkan wixii ku haray si toos ah loogu isticmaalo riboorada kala duwan oo ka mid yahay balance sheet-ka maanta insha Allah taala cashirkeena intaas ayaan ku hakineynaa inta cashir lamid aan kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.